إيد أن فرح سنة إن ما يبقى إن أرضيكم جامعة جنانة إن كبدن كنت نرضي ويسوجر قبل يويل الأيام كقلن جبسي جامعة جنانة وكنت الله جذها مجالها بيدبيع حرنت قبل كباي وحنا مناسبات قلن جبين تكسو قيب قلي مسؤولين كسو تمام الكوكم فرق البيت معلمين والدين iyo qaybaha kale ee bulshada ugu horeen waxa munaasabada qalin jibinta hadallo lagu dhiirigelinayay ardayda ka jeediyay qaar kamid ah mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay munaasabada sida ay ogtihiin qoraal waxa jirtaan isticmaalo leeyahay qaab waxa ugu xun marka aad mashal sugta qaabka ugu xun ee qof bini'aadan ay qaabmo waa marka aad mashal sugta xabsiga ugu xunna waa marka shaqaalada waxaan doonaynaa inaad shaqaalo noqon waxaan leenahay waxaan rabnaa inaad noqotaan shaqaystayaal ama loo shaqeeyayaal si aad u taajirtaan ilaa ma taajirin shaqaala ma taajiro taas marka waxaan leenahay haddii waxaa la yidhaahdaa waddanka qabyaalada ka jirta intaa ka jirta ogow suuqa qabyaalad kama jirto soosma suuqa qabyaalad kama jirto halabuurka qabyaalad kama jirto oday lagaama rabo wasiir lagaama rabo xildhibaan lagaama rabo cid lagaa rabo ma jirto soo maaha marka suuqaas aan ku rajaynaynaa inaad wax ka keensata taasaan kugu dhiirigelinaynaa fariimaha ugu dambeeya waxaan leenahay dadka wax bartay ee adinka mid yihiin waxaan jecelnahay insha Allah in waxbarashada la sii zaa'idiyo gobolka Baay aan ku sugannahay shantiisa degmo qaar baa waxay dugsi sare la'aan qaar dugsi hoose la'aan waxaan jecelnahay insha Allah in meesha la gaarsiiyo cilmiga la furfuro sanaynta lagu haynin dawladda iyo kambaniyada shaqada bixiyana waxaan leenahay in maxay ahayd dhalinyarada loo fududeeyo qaasatan dadka bangiyada ka shaqeeya sida Dahabshiil sida insha Allah taala dugsi dhamaysana hadan way bedelaan jaamacada bedelne master bedelne doctor bedelne ay ibine insha Allah hambalyo runtii wali hambaliyay ardayda ha ku qalan jibiyay ku qalan bedelati jaamacada Ganaane University sidii aragahaytan may farxadinga antige kantana habjeedi oo hasan dhaway kelmadii ardayda oo hadawaayo ka hayti eedeedan farxad dartiya ma hadal kora maysan laha mar lamaad mar saddexaad hadhawaada gacmo furma ka dhawaada may baa jaamacada Ganaane xafladii may baa dufcadii saddexaad yow batri sanadkan ma in qalin jibiyayta arday deerasa 29 arday jaamacada intii furanta may ku qalin jibiday 64 arday oo shalduun kulliyad shalduun iyo ku qalin jibiyeen eedeedan ma santin meel inta ku sifay inta asin ka dhawayno jeelayni noor hal hada waqtiga yar oo dibadina sinkural griyana eedeedan ma santin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa shukran ala husni istimaa'ikum Sheekh Aadan Sheekh Saciid oo kamid ah macallimiinta wax ka dhiga jaamacada Ganaane ayaa ardayda ugu baaqay inay mar walba ay ku dadaalaan mar walba waxbarashada ونادى حمر من درت معنا حمر حافظ كل أنا بدون من مجال ما دام يميل أرأي مثلا التجميد المدين والنهار مدام بينهم لكن اللي يوجد ستة بينهم مدام يقول سأزتين اللقاء حتى ميل أرأي عام بالون وحلي ميل أرأي ميل فيلي ولا جير ويات كصاحب كه يوم ما يرأي أو يوم ما يرأي سكول مقالون برضه سفيلة كتابة برجلا وما تسد فرمي وما يرأي أنا بعدي وقوي ما يحرا وحير gabagabadii munaasabadu waxaa ka hadlay wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Malaaq Koolkooliyo asiguna ardayda iyo waalidiinta ugu mahad celiyay dadaalkooda waxaan rabaa hadii Ilaahay idmo ardaydan oo hadda maanta qalin bedelanayso wasaaradda ugu horeyso wasaaradda caafimaadka ardaydan maanta qalin bedelanayso waxaan rajaynaynaa in shahaadadooda lagu qiimeeyo aqoontooda lagu qiimeeyo shaqaalanimadooda iyo waxay rabaan hamigooda in horta loo fududeeyo marka koowaad wasiirka ganacsiga aad iyo aad ugu mahadsan tahay mudane wasiir maadaama aad tahay wasiirka ganacsiga waxaan ka rajaynaynaa ardaydan maanta qalin bedelanayso oo soo barteen maadada ganacsiga
waxaan kaaga fadhinaa iyagana ganacsi in loo furo loo fududeeyo hadday u baahan yihiin hataa in la siiyo kaarka aqoonsiga in waxaan kaa codsanaynaa insha allahu tacaala iyagana inaa u fududaysid gudoomiyaha maxkamadda sare ugu horeeya asagana waxaan fariin ugu dirayaa shareecan low dadkii ka soo qalin jibiyeen iyo wasaaradda cadaaladda abukaatay u badan yihiin abukaatinimadooda in lagu tixgeliyo haddii ilaahay idmo aad iyo aad u mahadsantihiin maxamed khuseyr jito dalka TV baydhabo